وعن wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalkii Ukraine iyo Russia xaaladdu halka ay kala marayso dhulalkii maanta la kala qabsaday iyo sida ay Russia u soo gashay qayb ka mid ah dalka Ukraine dad muuqaal ah uu jeediyay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin weerar gantaal ah oo loo adeegsaday iyo qaraxyo sidoo kale caasimadda iyo airportka lagu dhuftay wasiirka arrimaha dibadda dalka Ukraine oo ka hadlay xaaladdu halka ay marayso madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo isna sidoo kale cambaareeyay weeraradii ugu xumaa ee Russia ay ka geysatay gudaha dalka Ukraine hogaamiyaasha UK midowga Yurub qaramada midoobay iyo NATO ayaa sidoo kale si xooggan u cambaareeyay weerarka dalka Ukraine qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ay barnaamijkan ku daawan doontaan haddii ay tahay marka koowaad soo booqato channelkeena Calanka TV subscribe do program baralka si aad noqotid daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena maasanid ciidamada Ruushka ayaa saakay weerar ku soo qaaday qaybo ka mid ah bariga dalka Ukraine kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu amar ku bixiyay in howlgal military oo gaar ah laga fuliyo gudaha dalka Ukraine taa oo soo afjaraysa toddobaadyo la malawaalayay waxa uu Ruushku ka damacsan yahay dalka Ukraine waana kuwan arrimaha dibadda aan ilaa iyo haatan ka ognahay khudbad muuqaal ah uu u jeediyay madaxweynaha dalka Ruushka shacabkiisa ayuu Putin ugu sheegay in howlgal looga gol leeyahay in laga dhigo meel militariga ka caagan iyo ciribtirka naasiyiinta laga wado ama laga sameeyo doono dalka Ukraine madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan sidoo kalena ciidamada ku amray inay howlgalkaasi ka fuliyaan gudaha dalka Ukraine madaxweynaha ayaa sidoo kale la hadlay qaybo ka mid ah shacabka dalka Ukraine oo uu sheegay in aan iyaga loo dan lahayn balse ay la dagaalayaan koox naasiyiin ah oo ka soo horjeeda horumarka dalka Russia weeraro gantaalo loo adeegsaday iyo sidoo kale qaraxyo ayaa la soo sheegayaa dhowr qaybood oo ka tirsan Ukraine in lagu dhiftay gaar ahaan magaalada caasimadda ah ayaa la sheegay in lagu dhiftay dhowr gantaal oo aad u waaweyn iyadoo sidoo kale goobo ka mid ah magaalada ay gubteen airportka ayaa la sheegay in sidoo kale dhowr gantaal ay ku dhaceen wasiirka arrimaha dibadda Ukraine ayaa Ruushka ku eedeeyay in weeraro cil iyo dhul ah ay ku qaadeen dalkiisa wuxuuna qaramada midoobay uga baaqay inay sameyso wax walba oo suuragal ah oo lagu joojinayo dagaalka uu Ruushka ku soo qaaday Vladimir Putin madaxweynaha dalka Russia ayaa yiri ciidamada Ukraine waxaan leenahay hubka iska dhiga ee gurihiina iska aada haddii kala cawaaqib xumo abid aadna la kulmin ayaad arki doontaan marka ay soo wajahaan ciidamada dalka Russia arrintan ayaana imaanaysa xilli saakay madaxweynaha dalka uu amar ku bixiyay in ciidamadiisu ay weerar ku qaadaan dalka Ukraine isagoona arrinta u sheegay inay tahay howlgal ay sameynayaan ciidamadiisu maadaama ay dagaal xoogan kula jiraan kooxaha naasiyiinta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa cambaareeyay weerarka wuxuuna wacd ku maray inuu la xisaabtami doono Ruushka Mareykanka ayaa maalmihii u dambeeyay taageero dhanka hubka iyo ciidanka ah siinayay dalka Ukraine oo saaka weerar lagu soo qaaday waxaa jira in Mareykanku uu ballan qaadiyo ciidan iyo sidoo kale inta kulan toos ah uu siin doono uu sheegay Ukraine walow saakay markii la isfarasaaray uu ballanka baxyad u muujiyay kadib markii uu si toos ah ugu sheegay inuu u duceyn doono sidoo kalena ay taageeri doonaan hogaamiyaasha UK midowga Yurub qaramada midoobay iyo NATO ayaa sidoo kale si xoog leh u cambaareeyay weerarka Russia dab xoogan ayaa ka kacay garoon caalami ah oo ku yaala galbeedka Ukraine markii uu Ruushka ku dhufay laba gantaal oo aad u culus Ruushka ayaa gantaalo la dhacay dhowr magaalo oo ku yaala Ukraine dhinaca kale madaxweynaha dalka Ukraine ayaa sidoo kale sheegay inuu hub siin doono cid walba oo doonaysa sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi waxaa laga yaabaa inaad xasuusato sawirada faraha badan ee laga soo qaaday bulshada Ukraine oo tababar asaasi ah sameynaya toddobaadyo ee kacsaneyd xiisadda Ruushka Ukraine oo aad uga tiro yar shacab ahaan dalka Russia oo tiradooda lagu sheegay 42 milyan ayaa hadda u diyaar garoobaysa inay wajahdo ciidamo aysan tiro ahaan u wacdi karin quwad ahaan aysan ku aadin madaxweynaha dalkaasi Ukraine ayaana ciidamadiisa iyo shacabkaba ku dhiirigeliyay inay qaataan hubka cid walba oo diyaar u hana gacanta loo gelin doono dhinaca kale dowladda Ukraine ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka Ruushka kadib duulaankii uu ku qaaday dalkeeda sida uu shir jaraa'id ku sheegay madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky Ukraine ayaa sidoo kale ka codsatay Turkiga inuu maraakiib dagaal ka xiro biyaha badda madow waxaa sidoo kale Turkiga ugu baaqay in maraakiibta Ruushka uu kor istaago marinada Bosphorus iyo Dardanelles sida uu sheegay safiirka u fadhiya dalka Ukraine u fadhiya dalka Turkiga waxaan ku baaqaynaa in marinada hawada Bosphorus iyo Dardanelles laga xiro waxaan sidoo kale codsigeena u gudbinay dhanka Turkiga isla mar ahaantaana waxaan doonaynaa in cunuqabateena lagu soo dhago dhanka Ruushka ayuu danjire Bondnar ka shir jiray in uu qabtay caasimadda dalka Turkiga codsigan ayaa laba daran mid door u ah Turkiga oo xubno ka ah NATO isla markaana Ukraine iyo Ruushka
xad kala leh dhinaca badda madow xiriir fiican uu kala dhaxeeyo labada dal heshiis la gaaray sanadkii 1936 ayaa dhigaya in Ankara ay xukunto marinadaasi ayna xadidi karto maraakiibta dagaal ee adeegsanaya xilliyada dagaalka ama haddii ay khalqal dareento 7 qof ayaa sida la sheegay booliska dalka Ukraine ayaa sheegay in ilaa ay hadda ay 7 qof ku dhimatay duqeymada dalka Ruushka mas'uuliyiintu waxa ay sheegeen in weerarka lagu qaaday saldhigga military ee ku yaala duleedka Odessa lagu dilay 6 qof tiro intaasi ka badan lagu dhaawacay 19 qof ayaa la sheegay in sidoo kale la laayahay meydkooda iyo sidoo kale dhaawacooda xaaladda Ukraine iyo sidoo kale Russia ayaa xadka ka sii baxaysa kadib markii dawladda Russia ee Ukraine ku wargelisay inaysan ku biirin NATO iyagoo u sheegay haddii ay NATO ku biiraan inay la wareegi doonaan ama weerar ku ekeyn doonaan qaybo ka mid ah dalka Ukraine Russia ayaa arintaasi ficil u bedeshay kadib markii asbuucyo ka hor ay dawladda Ukraine isku dayday inay ku biirto NATO ay markaasi islahayd wax awood ah ay keeli doontaan weli uma suuragelin in NATO ku biirto Ruushkuna waxa uu ku ekeeyay weerar isagoo ka qabtay ama kala wareegay qaybo muhiim ah warar cusub ayaa sheegaya in airportka ama xarunta ciidamada cirka dalka Ukraine ay gacanta u gashay ciidamada Russia gobollo cusub oo hor leh ayaa la sheegay in laga wareegay balse warar cusub oo hadda soo baxaya ayaa sheegaya in dawladda Ukraine ay heshay ciidamo aad u tiro badan oo uga kala yimid dalalka qaar ka mid ah Yurub iyo sidoo kale Mareykanka waxaana la sheegay dagaalku inuu hadda yahay mid foolkafool ah oo u dhaxeeya dawladda Mareykanka iyo reer galbeedka kale wadamada Yurub sida UK iyo sidoo kale Faransiiska iyo dalal kale oo aad u tiro badan oo hadda hogaaminayo Mareykanku waxaana la sheegayaa in ciidamo cusub la geeyay gobolada qaar sidoo kalena dawladda Mareykanka iyo hub iyo diyaarado halkaasi kala degtay Turkiga ayaa go'aan ahaan sida la sheegay qaadatay inay taageerayso dawladda Ukraine lama oga halka uu xalku ku dambeyn doono balse waxay ogtahay Ruushka iyo Mareykanka in si toos ah ay u safar saari doonaan walow la sheegay Turkiga inuu hadda si toos ah ula saftay Ukraine balse aysan ahayn arrin cad oo xaqiiq ah wararkeena dambe ayaan kula wadaagi doonaa halka uu ku dambeeyo halkaana waxaa nooga wararkeena habeenimo haddii ay tahay markuu soo boqoto channelkeena Calanka TV subscribe oo furo gambalka si aad u noqdo daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena